على آله وصحبه أجمعين. mahad iyo ammaan eebba iska leh. culimada sharafta leh mudane iyo marwooyinba marti sharafta qiimaha badan kulligood, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. halkan maanta waxaan ku kulannay arrin ka weyn, qof ka ballaaran degaan, ka sarraysa xil iyo jago, waddan ummadeed. ummaddu waxay u baahan tahay culimo qalbigoodu midaysan yahay, weedhahoodu toosan yihiin, digneenahoodu cadaalad yihiin, talooyinkooduna ay u horseedaan nabad, wadajir iyo horumar. maanta oo kale shirarka culimada Soomaaliyeed waxay yihiin tiirka ugu weyn ee bulshadeenu ku tiirsan tahay marka ay jiraan iskhilaaf fikradeed, kala duwanaansho bulshada ka dhex muuqda, kalsooni yaraanta bulshada iyo dhalinyarada, iyo abuuridda fahmida ee dadka Soomaaliyeed. culimada sharafta leh, waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo in doorkiina taariikheed uu yahay midaan cid kale buuxin karin. culimadu waa hirgelinta akhlaaqda guud, hagaajinta jihada bulshada, ka hortagga fikir kasta oo ummadda kala fogeeya, iyo dejinta qalbiyada marka uu jiro walbahaar ama hubin la'aan soo wajahda bulshada. midnimada ummaddu waxay ka bilaabataa midnimada culimada, waayo haddii culimadu isku duubnaadaan, ummadda inteeda kalena way isku duubnaanaysaa. waxaan maanta halkan ka jeedinayaa laba fariimood oo waaweyn: in culimada Soomaaliyeed ay noqdaan cod mideeye ee aan ay ahayn kala qaybshe. bulshadeennu maanta waxay u baahan tahay in la siiyo fariin isku xirta, midaysa, wacyigelisa oo ka fog qallooca iyo khilaaf. culimada ayaana ah kuwa keliya awooddaas ruuxiga iyo aqoonta diimeed ee bulshada dejisa. inaan kor loo qaado wacyigelinta iyo baraarujinta bulshada, gaar ahaan dhalinyarada. dhalinyaradeennu waa hantida ugu weyn ee dalka, waxayna u baahan yihiin wacyigelin ku dhisan diinta saxda ah, qiyamka wanaagsan, wadaninimada, iyo faham la dagaalanka fikir kasta oo xagjirnimo ah, qabyaalad ama kala fogeyn. maanta waxay rabtaa hoggaanka culimada oo midaysan. idinkana eebbe waa idinku asteeyey kaalintaas. doorka culimadu ma aha oo keliya faafinta diinta, waa hagidda bulshada, talo bixinta, xal raadinta, iyo midaynta dadka marka ay adkaato xaaladdu. ugu dambayn, waxaan alle ka baryayaa inuu shirkaanu ka dhigo mid laga soo saaro go'aano hagaagsan, midnimo lagu dhisayo, bulshaweynta Soomaaliyeedna lagu midaynayo. waxaan idinka mahadnaqayaa ka qaybgalka, adkaysiga, iyo doorka aad ka qaadanaysaan hagidda iyo horumarinta ummadda Soomaaliyeed. wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullah.